Assalaamu calaykum. Waxaan nahay dad isticmaala WhatsApp-ka. Waxaan markasta aragnaa fariimo noola soo diray, kadibna la tiray intaanan akhrinin ka hor. Markastu maskaxdeena waxay isweydiisaa, waa maxay fariintaasi? Haddaba daawade ka walwal la'aaw. Maanta waxaan ku tusayaa qaabka aad u akhrin lahayd fariintaasi la daleeday. Magacaygu waa Maxamed Maxamuud. Ku soo dhawaada Caaqil Taj. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay channel-kan, aadna danaynaysid teknoolajiyada iyo editing-ka, fadlan ha iloobin in aad saartid subscribe. Gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaaladeena xiga. Haddaba sidaad u akhrisid fariintaasi la daleeday, ugu horeyn waxaad tagtaa Play Store-ka. Waxaad taabataa searching box-ka. Waxaadna ku qortaa Notisafe. Waa midka ugu horeeya oo ku soo baxayo, calaamadiisana sawirka saaran sidan ayuu u egyahay. Kadib waxaad leedahay install. Markuu dhameeyo installation-ka, open ayaad leedahay. Kadib next ayaad leedahay. Next kale ayaad leedahay. Allow ayaad leedahay. Next ayaa sii leedahay. Kadib wuxuu ku keenayaa mobile setting-kaaga. Kadib wuxuu ku leeyahay haddii aad u baahan tahay marka inaad isticmaashid app-kaani u ogolaaw. On ayaad halkan ka dhigaysaa. Kadib instruction-kan iska akhri. Kabacdina allow dheh. Kadib back ayaad leedahay. Allow ayaad sii leedahay. Next ayaad sii leedahay. Markuu halkan ku keeno, wuxuu ku leeyahay kala dooro apps-ka aad u rabtid in uu ku shaqeeyo application-kani. Haddaba aniga waxaan dooranayaa WhatsApp-ka oo keliya. Daawade, adiga waxaad dooran lahayd adiga ayay kugu xiran tahay. Sidan ayuu nagu samaysan yahay application-kani. Hadda waxaan ku tusayaa example yar. Telephone kale ayaa message ka soo dirayaa, kadibna waan ka tirtirayaa. Waad aragtaan hadda message-ka ayaan soo diray. Kadibna waan deleedayaa. Kadib waxaan furayaa telefoonka aan message-ka u diray. Waad aragtaan wuxuu leeyahay message-kaani waa la tiray. Kadib waxaan imaanayaa application-ka aan soo degsaday ee ku qorneyd Notisafe. Open ayaan leeyahay. Waad aragtaan hadda wuxuu i tusayaa message-kii la tiray. Application-kani wuxuu kaloo leeyahay, wuxuu ku ogolaan karaa in aad akhrisid fariinta WhatsApp-ka kaaga soo dhacday asagoo qofka fahmin. Fariinta markii lagu soo diro oo qofka ka soo baxdo xaggiisa, waxaa u saarmayo haddii aad akhrisid laba calaamad oo buluug ah. Balse haddaadan akhrinin, waxaa u saarnaahayo laba calaamad oo u eg kalarka gareyga ama madow xigeen. Haddaba waa idin tusaya tusaale. Hadda fariin ayaan u soo diray mobilkii aan hayay.
kadib waxaan tagayaa applicationka NoteSafe. fariinta lii soo diray ayaan akhriyay hadda, balse qofka ma ogaanin in aan akhriyay fariintiisa. haddii aad ka heshay muuqaalkani, laag saar, la wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid.